الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay in halkan saxaafadda iyo mujtamaca kale ee reer Somaliland iyo caalamul islaamba aan maanta halkan aan ka cadeeyo xalay toole sida love TV-yada iyo warbaahinta aynu ku arkaynay nin boqor ah oo ka cabanaya amaba ka cabanaya mas'uuliyiinta wasaaradda duulista iyo hawada iyo madaarka ninka hadalladii ka soo yeerayay ama dhawaaqiisaas waxa ka mid ahaa in laga joojiyay isagoo gudanaya waajibaadkii xajka in loo diiday amar kaga yimi xagga mas'uuliyiinta wasaaradda looga joojiyay darteed sababihii uu cuskanayay ama waxyaabihii uu lahaa lagu joojiyayna waxa ka mid ahaa in abaabul shirar reero waxaan jecelahay amaba aan warbaahinta iyo ummadda oo dhan u cadeynaya halkan haba yaraatee meel iyo amar iyo meel aanu kaga joojinay boqorka isagoo soo gudanaya waajibaadka haba yaraatee waxaan halkan ka cadeynaya inaanay jirin cid bixisay iyo cid ka hor istaagtay iyo allahum cid u diiday haba yaraatee inaanu jirin waxa kaloo aan cadeynayaa qofka muwaadinka ah ee amaba qof kasta oo madaar ka dhoofaya sababta kaliya amba qodobka kaliya ee lagaga hortaagi karo socdaalkiisa isagoo fiisihiisa iyo baasaboorkiisa iyo dokumentigiisa sax yihiin in ay tahay warqad maxkamadeed waxaas horey noo soo martay warqad maxkamadeed qof ama la dacweynayo amaba cid is dacweynaysa warqad maxkamadda ka soo goosatay qodobkaas baa qof socdaalkiisa lagu joojin karaa immigration baan joojin karin cid kale aan joojin karin marka koobaad dadweynaha reer Somaliland waxaan u cadeynayaa sababta socdaalka qof lagu joojin kara marka koobaad inay qodob ka tahay mar labaadka waxa kale oo aan jecelahay boqor Rabi hadii uu caadeystay mar walba wax ka sheega iyo aflagaadada mas'uuliyiinta dawladda waxaanu jecelahay inuu ka waantoobo oo dhaliilaha iyo Allahumma salli ala Muhammad iyo cambaaraynta uu soo jeedinayo meel aan ka mudnayn inuu ka waantoobo baan anigu soo jeedinayaa in badan baanu boqorku dhaliilo u leeyahay wasaaradda uu halkan ama madaarka uu ka sheegay qofka bilaadanka ana hadii uu isagu uu de soo dhaafo xadkii loogu tala galay uu soo dhaafo waxa qurux badan halka warbaahintu iyo sida wax yihiin in loo sheego waxa ayaamaha maalintaas uu damcay oo halkan media ku soo bandhigi doonaa inuu boqorka waxa jirtay niman mas'uuliyiina oo sida warbaahintu ku aragteen transit-ka dawladda ka tirsan Soomaaliya oo ka tirsan oo ka mid ahaa transit-ku ahaa madaarka nimankaas waxa isku jira wasiiro iyo taliyaha sirdoonka hore Tuuriyar iyo niman kale oo fara badan wuxuu damcay boqorku inuu kula kulmo gudaha madaarka Hargeysa goobtii ay ku sugnaayeen inuu ugu tago in sharciga socdaalkuna wuxuu fasaxayaa qofku meesha doonaha ka soo jeeday inuu qofku maadaama uu isla maalinta gudaheeda uu madaarka ka dhoofiyo inuu magaalada uu transit ku ahaado boqorku kulanka uu la kulmayay mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ka tirsan ayaanu loo diido laga hor istaagay laakiin arintaas hadii uu boqorku damco sidii caadidaba u ahayd waxay ahayd barigii hore markuu dawladda amaba uu matalaya reer Somaliland uu xamar tagayo uu la dhuuman jiray laakiin hadii uu boqorka ay tustay inaanu imika dhuumashadiiba uu gudaha uu kala kulmo uu ku matalo Somaliland dalka gudihiisa taaba yaraatee wax suurto galaya iyo wax dawlad ahaan iyo wasaarad ahaanba ka suurto galaya maaha hadii uu damco in qaranka iyo jiritaanka iyo rabitaanka shacbiga boqorka laga laalusho oo uu damco waxaan ummadani ku midaysnayn iyo aynu ku wada socon in uu maalin walba uu dhawaaqiisa iyo hadaladiisa uu ku matalo de arintaas waxay noqonaysaa in laga tashado oo Allahumma salli ala Muhammad sidoo de tahay warbaahinta loogu sheego qodobka labaad boqorku wuxuu ka dhawaajiyay in boqorka Sacuudigu oo xujayda uu kamid ahaa la siiyay dawladda waxaan halkan ku hayaa warqadda liiskaas ee arkaysaan waxa dawladda Sacuudigu ay dawladda Soomaaliya ugu deeqday nambarka xujaajta ee halka ku qoran boqor Rabi waa kamid dadka xujaajta ah ee dawladda Soomaaliya ay ugu deeqday Sacuudigu ugu deeqay dawladda Soomaaliya waxaad ka garan kartaa inuu istiil boqorku
allahuma salli calaa qalbi giisu iyo rabitaankiisu uu joogo muqdisho jasadkiisuna hargeysa uu inala joogo marka anigu wax badan oo intaa ka badan odhan maayo waxaan leeyahay boqorka allah ha ku caafiyo anagu ilo ixtiraam baan ku haynaa siday wax yihiin iyo siday qorshuhu yahayna waxaan ugu kalifay afkaad ku hadashay inaanu dadweynaha reer Soomaaliland aan u sheegnaan u soo bandhigno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.